magacayga waxa la yiraahdaa Ismaan Maxamed Xasan alla leeyahay wax warka ka jira ma jiraan anagu al-shabaab aanu haynaa ma jirto magaalada iyo eeriyada magaaladuna waa nabadgelyo wax dhib ka sheeganaya iyo wax ka qaynaya wax ka hadlaya midna ma aanu hayno wax alla leeyahay wax ka jira ma jiraan wax nooy wararkaasina waa wax ku tiri ku teena waa dad been abuur waxa sameynaya waxaana ku xaqiijinaya magaaladu waa leedahay odayaal bay leedahay waxa nabadoonnay leedahay waxaan ku dhiibayaa nabadoon Axmed Sheekh Labanin la yiraahdo oo nabadoonnada mandaqada kamid ah ma garad waayahay inta aadan nabadoonka ii dhiiban adiga su'aal kale hadii aan ku weydiiyo deegaanka guud ahaan meel ay kaga sugan yihiin al-shabaab ma jira miyaa hadda leedahay anagu meel ay ku sugan yihiin inta eeriyada magaalada buuraha dacalaha dhinaca Buntland iyo buuraha la yiraahdo waa isku laalayaan waa maqlaa inay joogaan laakiin anaga eeriyada wax yaani dhibaato ah oo deegaanka laga sheegtay iyo wax cabsi iyo wax ku soo kordho deegaanku noo sheegay meelaha eeriyada magaalada ku dhow magaalada ana badda kala hadlaya waanigana kula dawaayeladii baan ku dhiibayaa warkaasi waa ku tiri ku teen waxba kama jiraan waa nabadgeliyo wixii warka keenay iyaga dib loo weydiiyay meesha ay joogaan iyo meesha ay ku sugan yihiin awal horey looma sheegi jirin oo lama oran jirin deegaanka waxa soo galay al-shabaab hadda maxaa keenay in warkan uu yimaado la dhaho al-shabaab ayaa waxay soo galeen degmada Yube waxaan malaynayaa anagu hadda ciidii ka hadashay qolada saxaafadana waa la weydiin karaa ciidii ka hadashay soo tiriyaan al-shabaab baan deegaanka Yube ku aragnay ma jiraan waxaan malaynayaa waa dad hadalladana waa iska jiraan oo dhulka laga waramaa ku tiri ku teen oo meelaha la isla dhaafaa community ahaan iyo hadii ay xukmiyay eeriyada wax dhibaato iyo wax dareen iyo wax dhaqdhaqaaq oo ka jira midna gobolka Sanaag waa galgala iyo gobolka Sanaag bay kamid tahay waa ku maqlaa galgala iyo bay joogaan laakiin anaga eeriyada degmadayada tayib wax alaale iyo wax aanu ku aragnay iyo wax lagu sheegay eeriyada tan oo ka jira ma jiraan meelaha la yiri al-shabaab baa soo galay adinku ma tagteen oo ma soo xaqiijiseen inay run tahay inay been tahay ma jiraan bad waana maqalba warkaas anagu warka ma maqalkay baan meel baa soo joogtaa ama maraysa ama waa soo gashay midna ma aanan maqal dadka waxaan u sheegayaa in propaganda dhulka laga daayo beenta qofkii waxaan dhibaato ku arkay deegaanka ama wax ku soo kordhayna dib mandaqada warbixinteeda waa inuu mandaqada ku soo horeeyaa anagu mas'uuliyiintii baan nahay waayeeladii baa jooga nabadoonnadii baa jooga warka ma aanu hayno in loo soo sheego weey odayga iidib halo magacaaga ku bilow waxa la yiraahdaa Axmed Sheekh odayaasha deegaanka aad kamid tahay miyaa sida weeye wararka sheegaya in xarakada al-shabaab ay soo gashay degmada Yube ee gobolka Sanaag maxaa ka jira wallahi anagu walaalo gobolka Sanaag waa go'yahay diceer gaabo waa gobol Sanaag oo balaaran anagu meel Yube la yiraahdaan joognaa Yubena ma aanan arag waxa meelahan ku aragnay iyo meelna loo ku sheegay iyo meelahan ka anagu ma aanan arag hore iyo dibtoona ma arag laakiin gobolka Sanaag anagu waxaynu waa balaadaya waxa tiri maana maqal meel ay soo galeen ma dhici kartaa in ay jiraan meel ay soo galeen laakiin adinku inaan ogeyn hadda anagu waxaan loo bixin ka hadalay waxaan aanay kama hadlin Yubena magaalada ma aha caasimada waa juuro xoogaa iska yar waa ciidamada jooga odayaal baa jooga dadku waa degan yahay shacabka miyadoo dhan inta aan u warayno anagu meel oo ku sheegay leeyahay halkay joogaan oo soo Yube maya mar qura ma soo gelin mana arag mana ay soo gelin maya ciidamada Soomaaliland jooga